wacan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda ka hinaastay aqoonsiga somalilan ee jabuuti ismaaciil cumar geelle oo hadda bilaabay dagaal badheedh ah oo uu ku qaadayo sidii uga hortagi lahaa aqoonsiga somalilan wasiirkiisa arrimaha dibadda oo u diray etoobiya iyo fariin uu markaasi warqad ah oo uu siday oo loo gudbiyey ra-iisul wasaare abiy axmed oo ismaaciil cumar geelle kaga baryayo in la joojiyo aqoonsiga somalilan oo aan dowlad loo ictiraafin buu yidhi islamarkaana ay jabuuti hadda saldhig militari siinayso markaasi dalkaasi etoobiya ballanqaadi ayuu u sameeyey ismaaciil cumar geelle oo maryaha dhigtay ayaan idiin hayaa dhinaca kale basaasiin uu soo diray oo markaasi hadda uu ka dhex adeegaysa jamhuuriyadda somalilan gudaheeda niman xildhibaana oo markaasi hadda uu jeebka wax ugu soo shubay sidoo kale ninka la yidhaahdo maxamed cabdilaahi cumar oo isaguna ah wakiilka khaaska ah ismaaciil cumar geelle u soo diray sidii markaasi tushuush iyo dagaalo iyo falqalalo iyo iska horimaadyo looga dhex abuuri lahaa jamhuuriyadda somalilan iyo dhinaca kale sidii looga hortegi lahaa aqoonsiga somalilan etoobiya ay siinayso iyo cabdilaahi cumar oo marka qorshayaal waaweyn hadda gacanta loo soo geliyey oo xasan sheekh iyo in cumar geelleba ay markaasi ninkaasi wakiil uga soo dhigteen sidii aqoonsiga somalilan loo burburin lahaa ee markaasi dib loogu celin lahaa maamul goboleedkii u xirsi hore iskugu dayay inuu inooga dhigo oo soomaaliya inoo hoosgeeyo dhinaca kale maxaa ka jira jaqaaqda uu markaasi ninkii dhigyo cabka ahaa ee garaadgala dagaalku uu hadda markaa baraha bulshada soo geliyey ee uu leeyahay wadani baa markaasi ka dhigaya de mucaaridkii baa nala dagaalamay iyo raggii xulafada naloo ahaabaa hadda nala dagaalamaya beelihii markaasi hore iskugu xooqi jireen ee garxajis oo sheegay hadda inay mucaarid ku yihiin maxaa arrintaasi ka jira in ay tahay markaa suuqgeyn iyo marketing uu xisbiga buurafuulku samaystay ayaan iyadana daaha ka roganaa iyo hore ay iskugu dayeen inay calanka markaasi wadani ay kooxo markaasi gubaan si looga dhigo inay huwantu col la tahay wadani filinkaasina waa la khashifay dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka mujaahid faysal cali waraabe ninka muwaadinka ah ee xalaasha ah ee musharaxa madaxtinimo u sharaxan ee soo labeeya ee daacadda ah dee muuse bixi soo labeeya ee dalkan daacadda u ah ayaa maanta afka furtay waxaanu faysal cali waraabe ugu baaqay beeshiisa garxajis ee beryadhan xirsi iyo cira ay xoqanayeen kaarhkooga in haddii beeshaasi ay markaasi haraaday xaq u leedahay in la doorto in isagu 20 sano uu soo sharaxnaa haddii tol la yahay buu lahaa laysku tago oo markaasi annaga iyo cirahana la kala reebo ninka xaqa u leh ee 20 sano soo sharaxnaana codka hala siiyo beelweyntii siciida gale oo garab istaagtay maanta oo hore dacaayadihii loogu sameeyey ee ahaa ciidagalal ma taageersana faysaltii oo meesha ka baxday ayaa iyadana maanta qacdii ugu weyneed uu ka yeedhsiiyey xusbiga huwanta iyo buurafuulka waxaa kaloo ka soo qaadanayna barnaamijka dekadii berbero iyaduna dhaqaaqday oo malaayiin adhiya hadda markaasi laga daadguraynayo oo lagu rarayo maraakiibta shaqadii dekada oo xawli usii socota iyo qacda ka yeedhay cadowga dekada berbera iyo aqoonsiga somalilan iyo iyadoo in ognahay hore in ay number 1 u qaaday dekada berbera qiimayntii baanka adduunka uu sameeyey qacdii ugu weyneyd baa cadowga somalilan ka yeedhay qodobada iyo qodobo kale ayaan dul istaagi doonaa ku soo dhowaada barnaamijka waa hagaagaan ku bilowna barnaamijka ee madaxweynaha maryaha dhigtay ee hadda ka masayray aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan iyo dowladnimadeeda waa dowladda jaarka aynu nahay ee jabuuti madaxweynaha xooga ku haysta ee dayna ismaaciil cumar geelle ayaa hadda isku dayaya wax allaalixii uu lacag tamar iyo xoog bahayey inuu isticmaalo si loo hor istaago aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan waxa uu maanta u diray markaasi dalka etoobiya warar haddana soo gaadhay xaqiijinayaan wasiirkiisa arrimaha dibadda waxaana uu warqad qoray ra-iisul wasaare abiy axmed warqadaasi oo markaasi baryayo oo uu ka tuugayo in uu joojiyo ra-iisul wasaare abiy heshiiska jamhuuriyadda somalilan iyo etoobiya ee qalinka lagu duugayo 26 juun bishan aynu ku jirno maalintii aynu xorriyadda qaadanay taasi oo hadda lagu beegayo aqoonsiga dowladdii ugu horreysay ee ictiraafta kadib 60 sano oo markaasi aynu rafaad iyo aynu god ku dhacnay oon ka soo baxnay
wadankii ugu horeeyay hadda si toos ah ictiraafaya oo noqonaya Ethiopia dalkii hore ictiraafay ilaa dhowr iyo 3 dowladood bay hayeen markii Ingiriiska aynu ka qaadanay 4 cisho ayaan xorriyadda haysanay iskarabya iyo moogtahay ismaqiiq aynu waqtigaas samaynay ayaa ictiraafkeeni aynu godgelinay oo aynu Soomaaliya kula midownay tiiba maantana hadda isla typical film baa la sameynaya niman badan baa laynaga dhex samaystay xisbiga buura fuulka ee wadani ayaa sidii 60kii qoliyay iskarabya ayay moogtay khalkhalka geliyay nimankii doonayay daacadda oo ahaa jamhuuriyadda Soomaaliya waqtiga nimankii khalkhalka geliyay ee lahaa inoo yaacsi jamhuuriyadda Soomaaliya ugu daray waxyaabo noocaas waday sidii oo kale ay hadda buuqa la sameynaya filimkii oo kale la soo degay xisbiga wadani baa la soo dhaxmaray xildhibaanadiisii baa la iibsaday iyo xildhibaano kale iyaguna markaa raaca ina geelle ayaa ku soo shubtay ninka maxamed cabdilaahi cumar la yiraahdo ayaa wakiilka xasan sheekh iyo ay soo direen markaas Ismaaciil Umar Geelaba ka hortaga aqoonsiga Soomaaliland wada hadaladii hore inoogu khiyaameeyay uu maamul goboleedka inooga dhigayay ayaa hadda dib loo bilaabayaa boorka laga jafaya haddaba waxa ka baryayaa Ismaaciil Umar Geele warqadan uu qoray hadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo uu tuugaya uu leeyahay fadlan jooji aqoonsiga Soomaaliland hadda wada hadaladii dib loo bilaabayo xisbiga ayaan ka rajo qabnaa buur wadani oo doorashada guuleysanaya intaas uu nagu sin hadda wax walba waa lagu ogol yahay waxa kale oo Ismaaciil ku baryaya hadda wax kasta oo u baahan tahay ana ku siinaya sadhiga u baahan tahay haygu aqoonsanayaan dawlad noqon Soomaaliland bal cadowtinimadu halka ay taagan tahay nacaybku heerkaas ay la maraysaa Ismaaciil Umar Geele waxaana hadda la sheegaya wararka ugu dambeeyay soo gaaray in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi markaasi Djibouti uu tagay ra'iisul wasaare Abiy warqada baryadan uu gudbiyay haddana ra'iisul wasaare Abiy nin ballanka bax la sasaban kara ma aha hore ayuu iskugu dayay markaas Ismaaciil Umar Geele weydiistay saldhig la siiyo markaas military oo laga kireeyo badda uu diiday markaas Ismaaciil waqtigaasi uu meermeerinayay inta sano hadda markii ay Soomaaliland u ogolaatay inuu haddana halkan uga gacan haadiyo ana ku siinaya kaale saaxib caruur ma aha markaas moogtay ra'iisul wasaare Abiy oo kolba nacnac loo tusay kaale waa kan waxa weeyaan nin macquul oo dalka mas'uul oo aqoonyahana moogtay oo ku guuleystay biladii baldoorka caalamka ugu sarreeyay ku guuleystay biladii nabadda nin iska ciyaar baa hab moogtay oo Ismaaciil kuma dhinac u jiidan karo marka waxaad ogaataa in hadda waxa uu hadda wada markaas Ismaaciil Umar Geele ay tahay wax kasto markaas isagu awoodo ayuu isleeyahay samee si loo joojiyo aqoonsiga Soomaaliland waxa ka sii marar dilaacayba markii banka adduunku soo saaray kala sareynta iyo markaas horumarka ay sameeyeen dekedaha caalamka oo dhan dekada Soomaaliland ee Berbera ayaa noqotay number 1 oo markaasi ka sareysa wadamada moogtay Afrika Sahara ka sareeyo dhan iyada ugu horeysa oo wadamo badan ku yaala bariga iyo bartamaha Afrika iyo moogtay ilaa waqooyiga Afrika iyada number 1 oo dekada Berberi sida oo kale dhinaca kale marka la eego caalamka 103 ayay markaasi maraysaa dekada Berbera sida ku cad marka qiimeynta banka adduunka Djibouti waxay maraysaa kaalinta 300 marka waa la kala tagay marka halka waxa ka cad masayrkiina cirku isku soo shareeyay Geele waalidii ugu sareysay buu marayaa waxa uu taagay Soomaaliya iyadoo la aqoonsan baabay hal day dhaaftaybe hadii la aqoonsado maxay ugu dhici doonaan baaba ayaa u aaminsan yahay waa ninka xaq ka dadaali lahaay oo dadna horumarka Soomaaliland dekadiisa aaminsan ummadda horta burburi reer Soomaaliland dal noqonay waliba wuxuu adeegsanayaa qaar calooshooda shaqaystayaala oo hadda markaa uu xoogaa ugu soo shubay jeebka qaar waxa jira sheeganaya hogaamiye dhaqameed xitaa oo markaasi uu soo adeegsanayo uu jeebka ugu soo buuxiyay si kasta ha ahaatee waxa la sheegaya hadda inay tahay hawsha ina Geele wata caduur ba iska dhowdhowle caduur dhowdhowdo ma dhacsana iyo moogtay habar ba iska hawle helada inoo tuma reer Soomaaliland marka loo joojin maayo marka in Geele xasadka iyo munaafaqada wado laakiin laga fojignaado niman badan basaasiin soo dirsaday baa jira oo markaasi hadda uga adeegaya gudaha Soomaaliland marka isku duubni baa loo baahan yahay in marka cadawgeena meel uga soo wajeesano nimanka aqoonsi diidka ee horumar diidka ee hadda uu markaasi Ismaaciil adeegsanayo shalay tolayna la hor yimid iyo moogtay arkaynay laha waa walaalaheen Djibouti
Jabuuti waa walaalahena way ahaydee laakiin isagii hadduu cadowtinimo hadda naga samaystay oo inala dagaalamayo oo ina baabinayo dee walaalaheen maaha lagu khasbi maayo ninka doonaya inuu ku burburiyo oo dagaalo sokolee jabhayda ku geliyo oo kaala dagaalamaya horumarka dekedaada barbari samaynayso wadamo badan oo caalamku hadda markaa maalgashiyo badan soo wada ayaa xitaa jira jidka tareenka ee Somaliland iyo Ethiopia isku xidhiidh la samaynayo horumarkaas oo dhan uu ka xanaaqsan yahay oo is leeyahay burburi marka waxa weeyaan in meel looga soo wada jeesto isku duubniba loo baahan yahay reer Somaliland inay ilaashano markaasi dalkeena iyo markaa aqoonsigeena